وحن أخريدونا يعني ترجمتها قبيجي وتري هدراوي ولا يرهدو جعل لك ملو خوري أباتي الروب كدوفي إن والنتي ندوهن إن قاونتي سوابن دمالي ففالياشا كمغدا الدنيا دينا رجوبات كاغل لحدي إسلام نبدي كبيري أقول نبدو دبوحده رشينا كو أبويدي أسبيكو علول قليل أمانة بوركا تالا رجو أولولاين تجات كهدات كاغا أوتفوغاتي ما حاركو تنبيه أكو علي محمد إبراهيم ورسم السعيد hadraawi qof maahe waa qarwi waa mucjiso soo martay taariikhda fanka Soomaalida ma Afrikada haynu qaadano oo haynu fahanno dadka inaga dhashay inaanu goblan ka dhigin wax badan baa idinku hurdaa abdiray ka dhigo aanu waagu noogu bariyay soo jeediya qalin iyo waraaq waxa la wax lacag aan ku doonaynaa ma jirto waxa weeyaan xilla damaqdi ku dhibo oo xilba ku diray oo soo jeedinay waajib nolosha ka jira gobanimada u weyn baadidoonkeeda ama adkeynteeda iyo ilaalinteeda hadraawi hadaan isiraahdo laba eray ka dheh waxaan oran karaa horta marka ugu horeysa waxa uu cid walba kaga soocan yahay maansadiisu waa bad waa malxami waa maanso adduunka oo dhan gacan togaaleynaysa qaybo badan u kala guuraysa ilaa marka ugu dambaysa meeshuu isagu doonayo ku biishunto intaa u dhaafi maayo suugaantiisa muggeeda ayaa aad u ballaaran taasuu dad badan kaga duwan yahay ta kale waxa weeye waxaan odhan karaa haddaan hadraawi bartay oo muddo badan wada noolayn saaxiibtinimo aad u qoto dheerna ayna dhex martay waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu hadraawi caan ku yahay ereygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin soomaalida ka sokow hadraawi waa gabayaa ay bini'aadanka oo dhami wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bani'aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bani'aadminimada ah ee uu wax uga tariyey nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo Soomaalida iyo caalamka guud ahaan محمد إبراهيم ورسمي وهدراوي إلهي يسهلي فالكنتا الصدودنكا iyo anshaxa dhaqanka Soomaaliyeed محمد إبراهيم ورسمي هدراوي abwaanka weyn ee Soomaaliyeed caanka waxa weeyaan hadii taariikhi jirto gabayga waa lagu sheekan jiray gabaygu muu lahayn luqad lagu qaado raaga ugaas baa u sameeyay hoyaladeen raaga ugaas baa bilaabay suugaanteena hadraawi sumad badan ayuu ku soo biiriyay oo isagu ka kawahaa oo dabadna ay sidii ku socoto dhowr soonaanta iyo urursanaanta shakhsiyadiisu leedahay iyo sida aanu u magaranaysaa dhacdhac u lahayn dadku ay u haystaan hadraawi markay maqlaan in nin mar walba xikmadu ay ka qubanayso oo aan afka isu garan laakiin markaad aragto inta uu hadlayo iyo dadka uu la hadlayaa si u kooban yihiin iyo haddana ilhaamka ka soo deexanaya ayaa wax lala ashqarano aad u la yaabaa maxamed ibraahim warsame hadraawi shakhsiyadiisa iyo suugaantiisa waxaan anigu u aqaanaa badweyn bilaa xeeliya anu suugaantiisa si aan u fahmo waxaan u kala qaataa saddex qaybood oo kala ah hadduu ka hadlayo tabasho oo tabashooyinkiisa faraha badan leh ay ka mid yihiin cadaalad darro hadduu tabanayo oo cadaalad doonayo haddii uu doonayo muxuu ahaaye in sidan loo nooliyay si ka duwan loo noolaado suugaantiisa tabashada qusaysa markuu ka hadlayo wax soconaysaa malaha hadraawi waxa loogu talagalay inuu taan ka hadlo haddana markaad aragtay isagoo ka hadlaya tala bixin suugaantiisa tala bixinta ee uu tala bixin soo jeedinayo iyadana waxaad soconaysaa malaha waxa loogu talagalay inuu taa ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana ma axlaha waxaad garan karaysaa
waxaad garan karaysaa yani inaad ninkaasi yahay nin qalbi nool leh dee maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaanu wada kulannay 1969kii tilmaamihiisa laba qodob oo degdega aan uga xuso oo aan ahayn midi waa sida uu u yaqaano ama uu ugu tolaado waxa saaxiibnimada la yidhaahdo iyo habka uu ugu gaadiido oo ay ku tahay oo macno leh oo uu yaqaan waa midda labaad waa halabuurka uu ku socmay oo gooniya maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabida lagu yidhaahdo fogaalka humaaga fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yidhi isla weyn hankeeda wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaar oo lugta webi u geliyee xaguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo optimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaannaa inta uu jeegaan quruxdeeda iyo siday tahay sida uu u cabbiray oo ku yaalla iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi kala dhiman adduunyay maxaan kaaga dhololaa hadraawi uu ka xeel dheer yahay in lagu astaysto abwaan gabayaa ama shakhsiyad waa manhaj nololeed Soomaaliya oo dhammaystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara weji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaan ahay dadka ka marakacaya abaalna u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyay af Soomaaliga falsafada islaamka wada deganaanshaha xorriyad u dagaalanka iyo xaq u dirarka waxaan ka qaadanayaa waxbarashada suduuc yar oo gaaban uu ka tiriyay gabaygiisii dheeraayay dabahuwa iskuuladu waa dayeen damiinimada ay dhigaan dantay uma soo lugo دكتور عدوي سيدين دقري عدوي سيدين هذا هو حويان وديقس وأنا من الدنيا وحب الله هاي وحدقو وحدقو وحدسو بريم حاضروني وحال سكود الله ينا يادون كذا لانتاتك هبرة أدرى وشغلكم على هذا هو حوي لأن حريص بدن وي تذكر أنو كل حين وحوي أن العلم هي عقلي هي قرشو هي نحريص هي وذي النمو هي كرتيس كودر صدي وحكاك فلان وحول اللعاقي ويد لقو يري ويد وذان ويد لقو يري وده هيلا سوقني هيك تبيني